بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. مسألة كلا كتاب الطهارة وكان الشيخ وناقد كم إذا من نواقد الوضوء. وحلا وسقات كبرية وحاول شيء مركا أو هوين إذا دي تابطين أجنبية الأجنبي كهدي تابطه والمحرم كده هين روح نصبي كده هين wax sababa oo ama nugma ama xididnima oo maaragtay aysan ka dhaxayna in wasiil ay burayso wuxuu dhahay oo yantaqidu wuduuhunna wasaqaadkoodu way burayaa bilamsi rijaal min ghayr haal rag taabashadooda ay wax u dhaxayn maxramnimana aysan jirin wasaqaadku buraya marka taabashadu dadka waxa laga yaabaa inay inta badan waxa u muuqata waysa burida u daran laakiin taabashada in nin iyo naag ajnabi istaabtaan iska dhaaf inay salaan iskula soo qasdaan ama salaan isku taabtaan ama si kale isku taabtaan ayaa waxay tahay shay aad iyo sharci u maaragtay u inkiray oo runtiina cuqubo weyn iyo guudi weyn oo sharcigu maaragtay uu ka yiri marka waxa aad u muhiimsan inta weyse laga fikirin biyo waa la helaa qadiyada biyo iyo weyse jabtay biyo ahaaleed aad u fudaan leh laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay in qofka shay bira oo xadiid ah madaxiisa oo in lagu mudo yaa ka sahlan taabashadaas yani shay naar ah oo مثل مدنا دبيسن أما مضع دبيسن أما مثل مديد دبيسن أما حاجة اللي جمده يعني مثال نوع عاصر النبي صلى الله عليه وسلم كبحش يعني ناق أجنبي يعني استهبتان يعني عقوبة ذا عذاب كرة معايا وحنا دخل ويفهم كران وآدنا أودي بدن لتو أنسهلني النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيتهرش ويرساس عقوبة يرى كير سهلا أنا واحد صح كدران هيا عذابكم متيسنا هيا أدو دران يعقوب الله رب العالمين حقيس مركا ويسجل كذا أقول لما أنا مركا ويسجل ويكجبيسا قفك وحتابته ويكجبيسا قفك اللي تابتانا سيدا وكلا سيدا أمارة خلافها كنجري ويكجبيسا sarka waxaan ku barana marka taabashada marka ama ha noqoto damac ama maaragtay waxa waaye wax taabashada damac la socdo ha noqoto ama ay noqonin way ka buraysaa marka haween hadii la taabto haweentaas islaam weyn ay tahay oo ajnabi hadana ay tahay yani saqiira kuma jirto waa in wasiga way jabto nin iyo naagtaba way ka jabto wasiga way jabto علماء قارب حيل هذا مركا وحو كان خلاف هديد يعني علماء كلا وحي ليهين وإن لا سعطو يعني دمع وإن لا سعطو تابع الشخص لكن شايف إيه سداس مايا وفيرنا وحي ليهين وإن مربع دي تابع الشخص دعضي ضدك إيكاد دعضي نضمن عاسيهين وإن ويسيدي وابرد ضيب مسألة كلا wuxuu yiri hadii marka istaabtaan waraan halkan ku kala fahamsiin mesela waxa la farq u dhaxeeyo malmuuska la taabanaya iyo laamiska wax taabtay ayaa marka qarax laga yaabaa in laamiska wisadu waa ka burtay malmuuska asaga ma ka burtay iyo kama burin sida saxdana anaga soo sheegnay hadda wuxuu leeyahay asaga waa in ka burtay hadii marka hal mar istaabtaan oo aan la kala garan karin laamis iyo malmuus aan la kala garan karin khilaafba kuma jiro leeyahay labadooda inay ka bureen waa khilaaf kuma jiraan markii laamis iyo malmuus la kala garanayo waxa laga yaabaa in la yiraahdo ka buray iyo kaas waa ka buray kaas ma ka buray in la yiraahdo warna kiina waxa uga baxdaa in labadooda ka wada buray
sidoo kale haddana wuxuu keenay naaqid kale oo ah qofka cawradiis inuu taabto. haweeney haddii cawradeeda taabato sida ninkaba ay uga burayso weyseqaadku ayuu uga buraa, wayna weyse qaadanaysaa. laakiin waxaa ka mid a waxaa jira xibno iyada dumarkii iyadoo istaabasha dhacday xibno qaar laga taabtay haddana aysan weysadii ka burin. waxaa ka mid matal iligii oo kale ama cididii oo kale ama tintii oo kale haddii taabashadu ay tahay ama taabashadu ay tahay matalan iyadoo wax u dhexeeyaan waliba iyada lafteeda sharci aan la ogolayn oo aysan ahayn qadiyadu haddii waxay dhexeeyaan waa taabi karaa, ama gabadha haddii gacan noo dhexeyso marna noo dhexeyso waa salaami karaa, marna sax maaha barnaamijkaas. yani waa yani awhaam ama maaragtay waxyi shaydaan waa haween dadka gobol yani in matalan ayagoo waxoogaa tadayun ay muujinaya inay issalaamaan haddana dhar isku dhexda ay macnaha maryaha iska xijiyaan waa wax shaydaanka uu u qurxinayo waay, wax saxa maaha. dabcan tadayunaa ku jira kuwaan tadayunka lahayn oo hadda aanba akhlaaqda lahayn moogta maba dharba iskama xijiyaan. waxaa laga yaabaa dad un dhowrsanaya inay saas sameeyaan, laakiin maca daalika yani sharcigu marna ma fasaxayo. mar iska xija ama gacanta ha banaanaato, marna salaan ma taagi kartid nin ajnabiya asna kuma soo taagi karo. masale kale ayaan u gudbaynaa oo ah waxyaalaha qubeyska waajibiya ayuu bilaabay. wuxuu dhahay qubeyska waxaa waajibiya haweeneyda ku waajibiya waxaa ka mid a xaydka iyo umusha dhiig umuleedka ayaa ka mid a. waajibay ku tahay haddii ama xayd ku dhaco xayd ka dhamaado inay qabaysato, haddii umusho oo ay ka umulbaxdo waa inay qabaysato muhiim waa. wuxuu dhaha haddii dhasho welad aan maaragtay dhiig la socon ama se laisweydii karo wali wadacat waladan laa dama maca, hadday dhasho caruur aan dhiigba lahayn iska qalayl ah xaalku soo noqona ma ka bedelanta markii ay gabadha caadi u dhasho sida hadda caadiga aan naqaano oo kale miya mise waa ka bedelanta. wuxuu leeyahay wajaba alquslu calaa asaxi alwajhayn. qolka muctamadka waxa waaye maaragtay xooga leh waa in qubeyskii uu ku waajibay ama wax qoyan ha dhasho ama wax qalalan ha dhasho ama wax qoyan ha dhashee waa in qubeysku uu ku waajibay. maxaa yeelay wuxuu dhahay yani hoos ayuu shaarixu ka keenay cilo ah waladku waa cunug laga abuuray biyihiid, haddii marka dhasho caruurkii saasa waxay ka dhigan tahay iyadoo maaragtay insaal samaysay oo maaragtay mani ka timid oo kale ka dhigan tahay. insaalkuna qubeyska waa waajibiyaa, marka dhalmadiina marka waa saas oo kale waxay waajibisay qabeys ay waajibisay saaska cilo yani sababta leh maxaa ay waas ugu waajibaaba qalalanya camal oo kale saas ay ku jawaabeen. waaya waxaa ka mid a maalan haddana waxyaala qubeyska waajibay khuruuju mani ilmar-a, haddii gabadhii mani ka timaado oo manideeda banaan usoo baxdo oo calaamaadka lagu garan kara wuxuu leeyahay asfar waa jaalla raqiiqun aada u jilicsan biyaha dumarku waa in iyaduna qubeysku waajibo. sidoo kale haddii mucaashara ay dhacdo oo maaragtay maniba iyo saba imaam haddii mucaasharo dhacdo oo laisku tag uu yimaado na iyadana qubeysku waa ku waajib. yuusanba biyo imaan hadday rabaan ama iyadiiba ka imaan ama ninkan uu ka imaan. manida masale kale u gala haddana ah gabadha manideedu daahir miya mise nijaas. manida gabadha oo daahir ama ha kusoo baxdo iskeed ha kusoo baxdo ama sabab ha kusoo baxdo waa daahir. masala ukhra walow istadkhalat maniyan fi qubulihaa lasimaha alquslu. wale haddii gabadhii ama iyaduba ay isku geliso ama ba lagu shubo riximkeedii lagu shubo sida haddaba ma laga yaaba in ay dhacdaan waqtigan hadda cusub oo dee qofka in siyaabo kale oo ayadoon u tegin in ay ku gaari karaan riximkeeda lagu gaari karo wajaba alqusl qubeysa ku waajibi. mini qubulkeedii ay geliso ku shubto biyo rag ku shubto qubeysa ku waajibi, qubeys ayaa ku waajibay. axkaam kalena way ka dhalanaysaa laakiin hadda waxaa naga qusay halkan dahaarada markii aan qubeys waxa waajibiya qubeys ayaa ku waajibi.
welibana haddana wuxuu ku daray farqi uma dhexeeyo maqubul miyaa laga shubay mise waxaa laga shubay maaragtay waxa weeye dubur miyaa laga shubay ma farqi uma dhexeeyo. waayahay gabadha marka waxaan dhahnay haddii matalan ay umusho qubaysaa ku waajibaya. hunkana masale marka uu leeyahay hadday cad yaroo maaragtay hiliba ay oo suurad leh ay maaragtay uu ka yimaado qubayska waa ku waajibaya ala saxiix. in nool yihiin shardi maahan, inay wax qaali ay yihiin shardi maahan, qubayska ku waajibaya. masale kale oo ah gabadhii macaashara dhacday muddo kadib yani ama saacada kadib waxa ka soo baxay amani ka soo baxday. manidaas yaa iska leh, keedii miya, kiisii miya, keediya maxaa ka dhalanaya? waliba markaan gabadha haddii ay jimaaci ama mucaasharadii ka qabaysatay inay ka qabaysatay kadibna ay mani ka soo baxdo qabaysaa waajib ku ah goorma? haddii islaan dan begatay ay tahay, matalan islaan hadday tahay shahawo leh oo de saqiir aysan ahayn, jimaaca markuu dhacayana ay qadiyad danteeda begatay, waxaa waajibka inay qabaysato. halkaa waxaa ka dhalanaya markaa saqiiradii aan wax shahawaan lahayn qubays waajib kuma aha. wuxuu kaloo raaciyey tii la dirqiyana waajib kuma aha, tii jiiftana waajib kuma aha. waliba markaa falaa yalsamu saqiirata alati laa shahwata laha wala mukrahata wala naa'imata na ku waajibi maayo. marka gabadha haddii ay marka sidaa iyadoo ah ay mini kasoo baxdo iyadoo arrimahaas ay dhaceen, qof qaangaarna ah, waxaa weeyaan qabaysiga waa ku waajib. oo kaloo ka hadlay masale kale oo ah gabadha marka ay qabaysanayso, gabdhuhu tinay leeyihiin, tintaas waa u tidcan tahay, waa u kala duwan tahay, tin jilicsan iyo tin adag inta waa iskugu jiraan. waxay sameynayaan, waxaa laga rabaa gabadhaas qabaysanaysa in ay dahaaradu gaarto, tinta inay gaarta laga raba. marka haddii loo baahdo inay tidiceeda furto oo la-aanteed aysan biyuhu gaari karin, waa inay tintaa furfurtaa si biyuhu u gaaraan tintii maaragtay duuduubneed daakilkeeda u gaaraan. marka hadday gaarayaan oo qaab ay ku gaaraysa u samaysan tahay, ama tinteeda iska biyo iska tahay, ama aysan si adagba u haysanayn, oo markay taa maarad ku ruxruxda ay gaari karaan laa ba'sa. laakiin haddaysan gaarin waa inay furfurtaa. waaya masale kale ayuu keenay oo ku saabsan isla qabayskii ah. marka qabayska ka qabaysato ama nifaaskii ama xaydkii inay isticmaasho miski inay isticmaasho, waxaa sunno u ah inay diib isticmaasho oo maxalkii dhiigga ay maaragtay marmariso si karaaixadii iyo dhiigga iyo maaragtay karkiisii uu uga baaba'o oo ay maaragtay sidaas ay ku wanaagsanaato. marka haddii aysan heli karin diib, haddaysan heli karin waxyaalo kale oo ay jiraan matalan ama mujaraba oo markaasoo kale raaxaad suuli kara, khalaas waa inay isticmaashaa. haddaysan heli karinna biyaha ayaa ku filan, waa in biyaha kaaftoonta. intaas arrinkaas markii laga rabaa gabadha nufasada ahayd iyo islaamada dumarka nufasada ah iyo kuwa maaragtay xaydka qaba iyo kuwii labadaas xugunba iskaga mid weyn. waaye wuxuu yihi tikraar alwad'i qabla الاغتسال ويجوز له وضعها بعد وضعها ثانيا وثالثا من غير غسل لكن يستحب أن يغتسل أو يتوضأ لكل مرة. مسألة لو كانوا sida wanaagsan haddii inta mucaashara dhacdo ay dhici karto mar kale in la isku laabto, yani waxaa sunno ah inay weyse qaataan. marka ayagoo aan qubaysan mar kale waa isku noqon karaan, dhibana ma laha. xukmu lmar'ati fi tayamum, haweeneyda axkaamta maaragtay xukumka ku saabsan booreysiga halkaan kaga hadlayaa. booreysiga gabadha waa booreysiga ninka oo kale,
دبي ويسو والجنابة قبته وما يظهر ظهارته حيث كذا بيويسو حيث كذا هرقته بيويسو وأنا عيد استعمال عشان نكون واسيد وكلا دو بيواي عيد استعماله سيدي بيه بدل كأيوة هاي عيد وجهاد ظهر وين بقى أي بدل ونقنا يعني عيدها. وأما الحيض فأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين. الكلام قال لي حيض محاوير أنت جبر أي حيض وما كره تجاربته اللي أجي هاي أما ما عرفت أنه يسويين محاوير هذا أجير أي جبر حيض وقول كره واسقال سنة. هذا مرة هذه كهر أركته وكهر ديكي ماذا حكم حيض ما قاعدنا حكم حيض ما قاعدنا سقال سنة كده بدي أركته والله فيرنا دي هاي ديك مارتي علوس وصفات كديك حيض كله ومارتي كلول ومحان كل إيش جديد من اسكو جراء أو أما مارتي كرية أو أروته حيض النقطة قاموس ودون كورسوين تخصص والبله ولا تالي ولا تشعر أكاديمية قاموس إيرانين